Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wacyiga bulshada telefishinka Universal. Barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa daawadayaal magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. waxana barnaamijka idila socodsiinaya anigoo ah Cabdiwali Xuseen Tawakkal. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. dad kasta oo dunida ku nool waxay leeyihiin dhaqaman iyo caadooyin soo jireen oo bulshada kale ay kaga duwan yihiin taasi oo ay dheer tahay diinta ay haystaan. Soomaaliya waxay qayb ka tahay dalalka ay sida weyn u saameysay horumarka tiknoolajiyadda casriga ah ee dunida oo saameyn ku yeelatay waxyaabihii soo jireenka ahaa. waxyaabaha ay sida weyn tiknoolajiyadda cusub ee dunida u saameysay waxa kamid ah waxbarashada dugsiyada Quraanka Kariimka marka aynu eegno bulshada Soomaalida oo muhiimada koobaad siin jiray xarumaha lagu barto Quraanka sida dugsiyada. arday aan dhamayn barashada Quraanka Kariimka in la geeyo iskuul ama loo ogolaado inuu shaqeeyo waxa ahayd wax dhif iyo naadir ku ah dadka Soomaalida. hase ahaatee dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa aad moodaa in taasi ay meesha ka baxday sida uu sharaxayo macallin Xasan Mayow Cilmi oo baraka ama darasa lagu barto Quraanka Kariimka ku taala magaalada Nairobi. bacda salaam waxaan doonayaa insha Allah ta'ala baxyar oo kooban oo ku saabsan xagga madarasooyinka iyo xagga zamanka aan joogno iyo waqtigaan joogno macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardada iyo qaabkii wax lagu barto iyo qaabka madarasooyinka wax lagu baro iyo qaabkan anaga wax ku soo baranay ee waqtigii hore ayaan doonayaa in wax yar faahfaahin insha Allah aan ka bixiyo markaan ku hormaro aniga khaasatan macallin Xasan ahaan qaabkan wax ku soo bartay Northeastern baan wax ku soo bartay inta badan Quraanka Kariimka qaabkan ku soo bartay Quraanka markii hore waxaan ku soo bartay loox baan ku soo bartay markii dambena madarasada buuga ayaa iigu dambeysay alxamdulilaahi rabbil caalamiin mudiir oo kooban ayaan Quraanka dhameeyay oo xifdiyay markaa kadib Quraanka markaan xifdiyay oo dhameeyay kadib ayaan waxay noqotay inaan iskoolaad iyo wixii markaa iyada kale ee culumta kale ee islaamka inaan galo ayay noqotay sidaas ayaan macnaha ku liibaanay sidaas ayaan ku soo gaaray macallinimadan. hadda magaalada tan ee Nairobi waxaan macallin ka ahay muddo 12 sano ah ayaan joogaa laga soo bilaabo 2007 ilaa hadda macallin baan ahay. waqtigii hore intaanan la soo gaarin 2000 iyo 2 ilaa 2005 intaan la soo gaarin ka hore dadka Soomaalida ah qaabkii ay wax ku baran jireen ee qaabka hadda ay wax ku bartaan wax kala gedisan way farq weyn baa u dhaxeeyo shataanun baynahuma waxa weeyaan waqtigii hore waxa wax lagu baran jiray inta badan waxa ahmiyadda la saari jiray xagga barashada diinta islaamka ama Quraanka ayaa ardada iyo carruurta laga soo dhisi jiray dhankaas markay ka soo dhisnaan kadib ayaa iskoolaadka la geyn jiray dhaqanka Soomaaliya saan ku aqoonay sidaas ayuu ahaa. ama hadda waxa bilaabatay inaan macnaha waxa weeye aanan la danaynin Quraankii inta badan dadka inta badan aysan waqti ku bixinin kharashaad ay ku bixinin wax ixtiraam ama macnaha ahmiyad gooni aysan siinin ayaa bilaabatay. aniga hadda qaasatan meesha hadda aan joogo waxa weeyaan ardadan u dhigo ardadeyda markii hore taqriiban 100 bay macnaha yay hayeen haddana arday 80 arday meelaha gaaraysa ayaan hayaa. waqtigii iskoolka markii la gaaro maalmaha iskoolka aan ahayn sabti axad ay ku jireen isniintii talaada laga bilaabo ardada dugsiga waxay yimaadaan gelinka dambe intooda badan wax yar oo 7 arday ah oo midka ugu weyn 6 sano uu joogo jira ayaan la joognaa maanta carruurta ee iskoolka aadaan 7 arday oo kaliya ka soo horday 80 arday taqriiban 70 iyo dhowr arday oo kale waxay aadaan inta badan iskoolka aadaan galabkii beentka ugu soo horeeyay wuxuu yimaadaa 5 galabnimo wadankan tan aan joogno ama 12 saac cid kasta say u taqaano ayuu yimaadaa. after markuu waqtiga uu yimaado xilliga iskoolka uu aadana waa xilli hore ayuu iskoolka aadaa oo wuxuu baxaa subaxii salaada subax markii la dukunayo adigu 5 iyo barka meelaha kan ugu dambeeyay 6 subaxnimo ayuu baxaa oo iskoolka uu aadaa 5 galabnimona way ka soo laabtaan ilaa 6 ay ka soo laabtaan qaar baa halka saac oo habeenimo yimaado
inta hadda inaga ay nala joogaan markay iskoolka aadaan ardaydu waa waqti yar oo kooban 30 daqiiqo laga yaabaa inta kan ugu badan in nala joogo ama 20 daqiiqo 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo gudahooda ayaa quraanka lagu dhiganayaa marka waad qiyaasi kartaa dhibka jiro quraankii annaga aan subaxii intaan u kalaano 6 intaan galno 6 galabnimo aan ka soo bixi jirnay oo inta aan baran jirnay maanta la yiray 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo ayaa lagu baranayaa waad garanaysaa macnaha xadka uu marahayo ama xifdigiisa meeshuu gaarsiin yahay iyo ahmiyadiisa iyo macnaha say waalidiintu u dhaqmayaan intaa waxaa macnaha si dheeri ah waalidiinta kale macallimiinta markii ay macnaha waxa weeyeen ay doonayaan inay macnaha waxa weey ay la hadlaan ama ay macnaha waxa weey ardadii ay kala hadlaan hadallo fiican iyo macnaha waxa weeyaan waji fiican kuluma hadlaan ayagoo sidaas ardayda sidaas baa laga yaabaa inuu macallinkii waalidka ku soo eedo oo uu yiraahdo macallinkan waxa weeyaan meeshan wuxuu u fadhiyaa oo kaliya inuu ardayda lacag ka qaato uusan macnaha waxa weey waxba u sabarin arday macnaha waxa weey saaki 12 iskool u kalahay ama 5 subaxnimo iskool aaday oo galabta 12 yimid barashadiisa halkaas ay tahay in macnaha hadana macallimiinta lagu soo eedo oo leeyahay macallinka wuxuu meesha u joogaa oo kaliya inuu wax lacagtiisa bish iska fiirsado oo mashaarkiisa iska qaato hadana ardayda uu soo wax barin taasna waxa weeyaan waa dhibaato kale oo iyadana ku soo kordhay Soomaalida midaan waqtiga ah iskoolka ay ku bixin hayaan quraankii macnaha waxa weeyaan lagu waqtiga lagu yareeyay iyadana waa dhibaato kale oo iyadana ku soo kordhay qarashaadka xagga qarashaadka markii loo kaco 99% waxa macnaha qarashaadka loo ogol yahay iskoolka misaal ahaan markaan soo qaadano hadda waqtiga hadda xaaladda hadda la joogo maciishadii waxyaalihii iska kordheen macallinkii haddii maanta u baahdo in macnaha waalidiintii oo kale uu la xiriiro oo uu yiraahdo hadee waqtigii macnaha waxa weeyaan waqtigii hore lama joogo dhaqaalihii iyo wixii waa kordhay hadee noloshii baa xoogaa yar adkaatay waxaan doonayaa qarashaadkii dugsiga in lagu daro ama waxyaalo wax uu codsado marka codsad uu soo gudbiyo waxa laga yaabaa in la yiraahdo ninkan waxa weeyaan waaba nin tijaaro raadinayo maaha ma doonayo inuu arday quraan baro waa nin macnaha ganacsanayo weey tusaalahan hadda inta badan wadankan kan aan joogno magaalada Nairobi ardayda waxa laga qaadaa meesha ugu badan waxa weeyaan meesha ugu badan waa 4,000 baa jirto 3,000 4,000 baa ugu badan meesha ugu hooseysana waa ku shil maanta macallinka ku shil qaadanaya diiran maciishada ugu adkaatay waxaan doonayaa in 500 lagu daro 1,500 laga dhigo waalidka waxa laga yaabaa inuu hadal ka keeno uu yiraahdo macallinka waaba ka darahayaa waxa weeyaan dhaqaale kursi ayuu taamooyeen ma wato ma doonayo nolol iyo maciishad iyo inuu arday wax baro ma doonayo saas ay macnaha iska dhacinayaan kadalika iskoolka kale hadii maanta lacag lagu daran cid ka hadlaysa ma jirto waxa weeyaan wax kasta oo leeyahay ama amar kasta oo ka soo baxa halka iyada oo loo hoggaansamaya waana loo ogol yahay in macnaha waxa weeyaan lagu bixiyo qarash iyo maal iyo wixii marka iyada naf iyo nolol in la isku daro waa dadka way aad bay ugu dadaalaan waana waqti wayna macnaha aad bayna macnaha waxa weeyaan arinta iyada xil iskaga saaraan habar iyo odayba waxa weeyaan waa xooga la saaraya waan macnaha waa macalinka asaga waxa weeyaan wuxuu doonayo ayaa loo sameeynaya macalinka dugsiguna waxa weey wuxuu doonayaa inuu soo helin baa laga yaabaa oo halka iyada ay dhibaato noogu timid taasna waa dhibaato kale iyada nagu soo kordhay oo macnaha waxa weey dadka Soomaalida dhaqan aan lagu aqoon jirin oo ku soo kordhay weeyaan taas marka waxa weeyaan waa kulli insha Allah ta'ala waqtiga iyo zamanka lagu jiro ayaan yeelahayo dhibaatada kale ee ku soo kordhay waxa kamid ah xagga macnaha quraanka markay noqoto dadaalkii lagu bixin hayo iyo xagga iskoolaadka dadaalka lagu bixin hayo waxa laga yaabaa ardayga quraanka dhigin hay waalidka inuu la socon meel uu marahayo inuu la socon farbarkiisa quraankiisa xifdigiisa macnaha waxa weeyaan cashirkiisa meel uu marayo inuu la socon baa dhici karta waxa marka dhacdo oo la arkay oo dhacdo inta badan iskoolka ardaygan meesha uu marayo inuu la socdo hooyo iyo aababa labadaba inay la socdaan galaasku marahayo xiisadu maanta u soo qaatay maxaan ku dhahay imtixaanka wuxuu keenay baa laga yaabaa inuu inta badan ay la socdaan wayna dhacdayba waxa weeyaan ardayga markuu ka yimaado iskoolka uu guriga yimaado buugtihi ayaa laga qaadaa waa la weydiiyaa maxaad homework oo maanta soo qaadatay maxaa lagu soo siiyay oo maanta homework ah oo ku yaala ayaa la weydiiyaa hadduu yiraahdo 2 buug 3 buug ama 3 cashar oo homework ay taalo waxaa lagu yiraahdaa halka miiska firiiso qor hadda ilaa aad ka qorto waxa weey halka kama kici kartid
markii uu homework uu qoro kadib ayaa laga yaabaa in markaa dugsiga loo soo diro dugsigu markuu 30 daqiiqo uu fadhiyana waxa laga yaabaa macalinka in telefoon loo soo diro oo leeyahay macalin tuushon baa u fadhiya ardayga waxa weeye soo daa hadaad ku dhaxdo waalidkii war haday cashirkii kama bixin cashirkii baa u dhiman hadaad tiraado waxa laga yaabaa inuu yiraahdo biribu ka bixi doona ama saadan buu ka bixi doona ama maalin kale ka bixi doona iska soo dir marka taas waxay ku tusinaysaa ahmiyadda ugu weyn ee iskoolka ay siinayaan iyo macnaha waxa weeyaan iyo waqtiga ay ku bixinayaan iyo liiditaanka iyo macnaha waxa weeyaan ixtiraam la'aanta ay macnaha quraanka ay siinayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu noo dardaarmay inaan barano annagii awlaadeennaba aan ku dhaqanno ayuu noo dardaarmay haddii arintaas aan helana in adduun iyo aakhiraba aan ku liibaanayn marka midaan waxa weeyaan ayaga hadda ay ku daalayeen dadka waalidiintana waa mid macnaha waxa weeyaan adduunyo kaliya waxa laga yaabaa hataa adduunyada inuu ka helin maadaama ilaahay subhanahu wa ta'ala qolkiisa u jeesay ilaahay ku yiri quraanka waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma macnaha dhikriga iyo quraanka diinteeda qofkii ka jeesado waxa weeyaan nolol xun ayuu ku noolaanayaa adduun iyo aakhira labadaba marka saas darteed ayaa ardayga markii iskoolka u dhameeyo ayaa laga yaabaa inuu shaqara iska noqdo mid la kari waaye oo muqaddaraadka iyo balaayada cuno oo macnaha waalidkii ay ka cabaadaan waalidkii waxa laga yaabaa ardayga asaga ah macallinkii quraanka ahaa markuu dhiganayo inuusan macallinka ixtiraamaynin inuusan ahmiyad u ku bixinaynin quraanka inuusan macnaha waxa weey uusan danaynaynin ayaa laga yaabaa marka waxa laga yaabaa halka iyada ah inuu dib ugu yimaado xagga quraanka macnaha iyo xagga macallimiinta quraanka ardayda barayso dib weyn baa ka jiro dhanka iyada ah marka Soomaalida dhaqankoodii ayaad moodaa inuu macnaha uu isbedelayo iyo macnaha waxa weeyaan waagii hore isay hadda ahaayeenba sida macnaha hadda hadalkayga aad ka dareemaysaan waxa weeyaan farqi weyn baa u dhaxeeya oo bedelka asagana hadii kulli ma aqaano waxa weeyaan indha ku garaadlo weey Soomaalida inta badan indhaha ay wax ku qaataan indhahooda waxay ku arkaan ay qaataan inta badan isbeddelka waxbarasho marka aynu eegno ee waayihii hore iyo waayaha maanta ee salka ku haya barashada dugsiga quraanka iyo iskuulka waalidiinta maanta miyay qayb ka yihiin su'aashaasi iyo waliba kuwa kale waxa weydiiyay uma sudaysa wad mahadsan tahay dhammaan University TV inta kadib wallahi su'aashu waxay noqon kartaa waalidiinta maxay markii hore quraanka u siin jireen mudnaanta waayahan dambana iskuulaadka mudnaanta loo siiyaa sax su'aasha ay ugu dhigtay waalidiinta marka hore dabcan mar walba horta wax la barto quraanka ugu weyn mudnaantana mar walba quraanka iska leh laakiin waxa kala duwan dadka weyga ay wax u fahmeen marka hore waxa waaye umadaha wax kale baran jireen malaha Soomaalida bas quraanka la yaqaaneen cidii quraanka taqaana marka waxa la siin jiray ixtiraamka iyo mudnaanta koobaad marka daas way hooyooyinka iyo aabayaasha kullu quraanka gacanta midig loogu heystay oo dugsiyada loo saari jiray culayska laakiin hadda waayahan dambe waxa waaye adduunka horumar uu gaaray cilmiga la bartay waxa waaye qofka quraanka yaqaan waxa laga yaabaa in la dhaho wadaad waaye madrasada iyo quraan akhriska intaas uu ka egyahay laakiin bulshada dhaxdeeda inuusan ka muuqan in loo arko laakiin hadduu qofka culumtan kale uu soo barto ama iskuul uu soo dhameeyo waxa ugu yar waxa waa hadduu high school ka soo baxo hooyadu ku farxdo wiilkayga ama gabareeda high school ay soo dhameeysa grade fiican haysataa marka waxay fahansan yihiin waxay u maleeyeen waxyaabahan kale ee la barta ee qiimeynta adduunka la siiyay dadku waxay ku kaliftay inay ayagana taayada ay la jaan qaadaan aragtidayda sababtoo waxa waaye waalidiintii hore waxa waaye waa adduunka waxay la socdaan jawiga ay la socdaan hadda ilmaha yar dhalnaa ilmihii waagi hore ma isku mid ahamay cunug hadda dhala waa digital markuu dhasho wax walba adigu ka yaqaana ilmihii hore laakiin waxa waaye waxba ma garan jirin aqliga in yar u soo gali jiray waa sida hadda dadka ay sheegaan waalidiintana marka ayada ah ee fikirkooda iyo aqligooda wuxuu ku koobnaa meesha ay ku nool yihiin iyo wax ay arkayaan ilaan insaanka waxa waaye al ibnu bay'ati baa la dhahay qofku wuxuu la bay'aliyahay ama uu ku dhaqan yahay meesha uu ku nool yahay marka meeshii uu ku noolaa dhaqankii ka jiray bes isaga wacda laakiin waalidka hadda jiro waa waalid caalamka la socdo TV-da la daawadaa horumarka adduunka jira la arkaa loolanka siyaasadda loolanka waxbarasho loolanka maxaa la yiraahdaa adduunka hartan badanaa ka jiro marka waalidkan waa waalid maskaxdiisa ay furfuran tahay caalamka la jaan qaaday wax walbeeto og marka waxaan dhihi karnaa waalidiintii hore iyo waalidiinta hadda
kuwaana maskax furan oo maskaxdooda meel fog ay ka fikiri walow kuwii hore ay xagga dhaqanka aad uga dhaganaayeen aad ay uga fiicnaayeen xagga dhaqan markii la dhaho ilmaha yar markaa midna dugsi geysid midna iskuul aa geysid kan subaxda iskuulka kaa aado wuxuu baxaa asoo faraxsan wuu ku weydiinaa iskuul maa jiraa maanta wuu carara kan kalena xoog iyo qasabaa ku waday asoo xanaaqsan sababta maxay tahay wuxuu aaminsan yahay meeshan iskuulka la dhaho inuu ka jiro horumar ka ballaaran horumarka madrasada iyo meeshan qur-aanka lagu haayo ayuu aaminsan yahay cunugan marka waxaa waaye wax badan ay saameysay sababtoo waxaa qofkan wuxuu rabaa inuu caalamkan hadda jiro uu la jaan qaaduu rabaa marka bas haddii lagu dhaho adii meel hal meel ku lagu xirno ee fadhi iyo haddii la dhaho qofkan adduunka oo dhan ha soo wareego dabcan qof walba wuxuu dooran lahaa qofka adduunka oo dhan soo wareegayo marka wax badan wayna saameysay ee horumarka adduunka hadda caalamka ka jiro qayb ma ahane dembigoo dhanba macallimiinta iska leh ilaahay dembigooda ha dhaafo wax badan ay hayaan ilaahayna macallimiinta ha noo badiyo hana noo daayo inta hore wax uun iska ahayd canaan iyo baraarujin laakiin macallimiinta waxaa la rabaa waxaan markay rootiini noqdaan ama ay soo noqdaan qofka bilaadanka wuu ku caajisaa waxaa la rabaa in la helo badiil waxaan maxaa lagu bedeli karaa fiiri iskuulada iyo waxyaabaha sistamka adduunka jiro waxaa jira kulamaa la qaataa xog waraysiyaa la qaataa waxay soo qataan seminaaray qaataan macallimiintaasaa looga baahan yahay annaga waxaa ulan wax ku soo baranay kuwii naga hore ulan wax ku soo barteen kuwaan hadda joogana ulan wax lagu baraa qur-aanka adduunkan waa aragtay ul waa laga tegey hataa meeshaan aan joogno iskuullada ul lama isticmaalo galaaska cunug markuu soo galo macallimada waa la ciyaari way xog waraysani shaqay u dhiibani u dirsani waxay dareensiina cunugan inuu yahay qof weyn oo mas-uul yarta inay dareensiiso orod bugaagtan hagaaji orod feel xafiiska igaga soo qaad saaka ma soo quraacatay haye xalasee ku soo kacday qofku wuxuu dareemaa marka qof weyn oo muxtarama inuu yahay hadduu hataa casharka soo diyaarinin ciqaabta la siinaa way ka duwanta ciqaabta dugsiga ka jirto markaas waxaa waaya si kala loo ciqaabo ul laguma ciqaabayo marka macallimiinta laakiin ciqaabtooda waxay noqotay ul kaliya ulna waxaa waaya waa la ogaada xal ma keento ilmihii waxaad nacsiini waxbarashadii iyo dugsigii iyo qur-aanka inuu ka fiigo sababtana maxaa waay annagaa iskale annaga maxaan u leenahay waxaan barnay bes qur-aan soo qaado hadduu qur-aanka cunuga maanta garan waayo waa la qaraacaa quraacdaa laga reebaa qadadaa laga reebaa wax kale ma jiro laakiin waxaa jiro wadooyin badan oo aan rabay macallimiinta in lagu baraarujiyo oo ciqaabaha ay noqon karaan waxaa ka mid ah cunuga hadduu uu maanta cashir soo diyaarin waayo ilmaha markaa quraacda u dayso bareega isaga celi dugsiga ku reeb adoo waxba yeelin ku xir ciqaab intaasaa ugu filan waxaa kaloo samaysaa bokis nanaca bokis oo buskud eh totoiska ilmaha ay ku ciyaaraan biyo juus waxlaa iska soo dhigo dugsiga madrasada aan wax weyn ahayn cunugii cashirkiisa ka baxo waxaa dhahdaa waxaan ku siinayaa hadiyad sababta maxaa waaye cashirkaagiyaa ka baxday kii kale lama siinayo kan kale marka beri cunug kale muxuu kusoo dadaali ilmaha waa aragtay wuxuu waalidkood siiyo waxay ka jecel yihiin waxa madrasada ama iskuulka laga siiyo wuxuu waxa ilmaha hortooda uu ku qaadanayo marka macallimiinta waxaa la rabaa inay bedelaan qaabkan usha ah ay ilmihii la sheekaystaan la ciyaaraan la qoslaan dabcan uma tababarno umana samaysno laakiin at least ina liska raadiyo because waxaa waay adduun horumar rabtaa inaad wax la qaybsatid waxaa wadatidna wax qaali ah waa diinaa wadataa marka diinkaagii haddii ul uu noqdo waa lagaa kala cararaa sababtan adaa iska leh marka ani waxaan dhihi lahaa macallimiinta waxaan ka codsanaynaa as waalidiin ahaan in usha la bedelo usha markaa bedelaysidna uu kuu diyaarsan wixii aad ku bedeli lahayd ciqaab lama diidayo ilmaha laakiin ciqaab sax ah uu cunugiina si sax ugu soo diyaarsan karo adigiina xataa muruqaad ka raysani ilan maanta hadaa wax qaraacid gacmiha konton cunug hadaa maanta mid ul saartid waxaa waay laftirkaaga cawda muruqaa ku galay marka inaad taa ka badbaadana way fiican tahay marka waxaan ilaa bal hala bedelo arrinta iyada hadday macquul tahay dad badan oo ka mid ah bulshada Soomaalida ayaa barashada cilmiga maadiga waxay u arkaan inay tahay mid sababi karta horumar la gaaro waana mid keentay in muhiimadda koobaad la siiyo waxbarashada maadiga sida uu qabo macallin Maxamed Qariif oo wax ka dhiga mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Nairobi arrimaha saway waxay la tahay aniga inay tahay xagga dhaqaalaha shaqada oo kale dad badan oo Soomaalida ka mid ah waxay aaminsan yihiin haddii aad cilmiga maadiga aad barato in ay lacag helayaan oo dhaqaale soo galaya oo ay shaqo helayaan oo dawladdu u shaqaynayaan laakiin waxaad moodaa
cilmigan kale oo madrasada ama quraanka waxaas in wax dhaqaale soo gelinaynin qoyska ama qofka bini'aadanka wax dhaqaale ku soo kordhinaynin ay dadka aaminsan yihiin marka waa wax psychological dadka iska dhaadhiciyeen oo haddii ay maadiga bartaan kaliya ay heli karaan shaqo ama dhaqaalo ama lacag ay heli karaan arrinta ugu weyn oo dadka ay u doorbidayaan taas weeye midda kale waxaa weeye waxaa laga yaabaa dowladaha inay wacyi geliyaan in la barto cilmiga micnaha ay priority-ga siiyaan cilmiga maadiga aysan cilmigan kale micnaha wax saas ay siin waxyaalaha noocaas marka dadka u keenay inay arrintaas ay hagaajiyaan Soomaalida isma bedelin laakiin qaabka dhaqanka iyo waxa isbedelay iyo age-ka dadka generationka isbedelay marka waxay first priority siiyaan ama muhiimadda koowaad waxay siiyaan cilmiga maadiga siiyaan waxayna aaminsan yihiin inay ku noolaan karaan haddii cilmiga kale ay bartaan inay noolaan karin aaminsan yihiin oo adduunka ay waxba ka noqonaynin oo dawladda ay u shaqayn karin oo xafiis ay ka shaqayn karin oo macnaha ay ku nooc shaqo ah shaqa muhiimadda ugu weyn oo dadkan ay macnaha u dooranayaan maanta waxa way inay shaqo helaan ay noolaadaan waaye marka generationka isbedel marka Soomaalinimada isma bedelin meesheeda taagan tahay quraan jaceelka meeshuu taagan yahay laakiin generationka markuu isbedelay wuxuu keenay marka dadka inay jeclaadaan cilmiga maadiga oo ayagoo ku raasanayo dhaqaalo adduunka ay ku noolaadaan macallimiinta quraanka dhiga ay laftooda noocaas oo kale sameyn karaan waa casriyan karaan dugsiyada waxay u yeeli karaan meel lagu ciyaaro ay u yeeli karaan way expand gareyn karaan qaab oo casri ah u hagaajin karaan marka ayaga gaabiyaan dhigi karaan ayaga hadii ay arrintaas ay macnaha ay xoog saari lahaayeen oo expansion ay ku sameyn lahaayeen waxbarashadooda ciyaalka waxyaalaha ay u baahan yihiin entertainment-iga u keeni lahaayeen sidii iskuulka kale ciyaalkan iskuul dugsiga waa jeclaan lahayd hadda laakiin ciyaalka iskuulka waxay dugsiga waxay ka aaminsan meel isku baanish gareeyo meel isku pressure gareeyo oo qol yar oo la galo oo macnaha quraan bas lagu xifdiyo oo la isku qaraaco oo wax noocaas marka macallimiinta laftooda waxay sameyn karaan maadaama generation ku isbedelay dadka isbedeleen ayaga laftooda qaabka quraanka ay u akhriyaan ay bedeli karaan oo macnaha waxay sameyn karaan entertainment ilmaha u sameyn karaan qolalka meelaha wax lagu bartay u weyneyn karaan macallimiinta laftooda way hagaajin karaan ayaga xitaa qaabka iskuulka loo hagaajiyo ayagana u casriyeyn karaan aaminsan ani qof kasta oo wax ku soo bartay waayii hore waxa uu dareemayaa waqtigan la joogo in wax badan waxbarashada oo ku saabsan ay isbedeleen sida uu qabo Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Aadan oo sharaxaya ardinimadiisii hore iyo waliba midda maanta taagan bismillah alhamdulillah wa thana'u lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah ba'da shukrillahi tabaaraka wa ta'ala waxaan ku shukrinayaa walaalada telefishinka Universal oo xafiiska igu yimi barnaamijkan ay diyaarinayaan oo ku saabsan waxbarashadana isiyiri wuu share gareyn karaa oo ka qayb qaadan karaa su'aal qiimo badan baa i weydiisay oo ku saabsan waxbarashada guud gaar ahaan dugsiyadii quraanka xilligii hore iyo waqtigii dhexe iyo waqtigan haatan la joogo oo iskuuladu ay siid caleeyeen oo soo baxeen maxay ahaydayay waxa keenay isbedelka maanta muuqda waxa ugu sababa jawaabteedu waxay tahay xaqiiqatan haddaan ku hormaro bilowgii waxbarashadii dugsiyada ee Soomaaliya berigii hore dadku waa dhowrsanaa waa urursanaa waalidiin qiimo badan bay ahaayeen macallimiintu sidoo kale macallimiin sharaf leh oo runtii waxay ahaayeen urursan sidoo kale dawladihii isaga kala dambeeyay wadanka Soomaaliya qudhoodu door weyn bay ka qaateen dugsiga iyo ta'siilintiisa iyo xoojintiisa waalidiintu macallinka way ku xiraayeen waa karaameyn jireen xoolo iyo hanti bay u gooyi jireen macallinka wal ardaydu macallinkay u duceyn jirtay maalin walba khamiisa macallimiinta loo duceyn jiray waalidiinta loo duceyn jiray dariska loo duceyn jiray oo shaafiin wax la yiraahdaa la qaadi jiray marka waxay taasi dhalatay in ardayda iyo macallimiinta iyo waalidku ay qumaati isugu xiraadaan macallinkeen allow kaal macallinkiis allow kaal inkashaba allow kaal waalidkeen allow kaal waalidkiis allow kaal inkashaba allow kaal deriskeen allow kaal waa la isku xiraa oo dad isu duceeya oo barakada iyo khayrka iyo wanaagga isu horseeday ahayd
dowladihii isaga kala dambeeyey waddankiina si xoogan bay oga qayb qaateenoo waxaa jiri jirtay in maxay ahayday waxbarashada iskuulka markii la xoojiyey dowladdu waxay wasaaradda waxbarashada u go'nayd arday aanan qur'aanka soo baran oo 7 sano aanan gaarin inaanan la qorin waa siyaasaddii waddanka Soomaaliya ay ku soo maxay ahayday meel martay muddada faraha badnayd waxaa daba timi markaa in iskuulkii haddana uu xoog yeeshay xilliyadii dhexe haddana isla dowladdii markaa jirtay iyo kacaankii xoog ma wada saarin iskuulka gelinna iskuulka la dhigan jiray gelinna dugsiga la aadi jiray oo waxaan garanaynay wakhtiga hore haddaan subaxii iskuul leenahay galabtii dugsigaana loo diri jiray oo weli dugsigu waa xoogganaa wakhtigii dambe oo hadda aanu joogno iyo burburkii laga soo bilaabo waxaa bilaabatay gacan bidixeen xaggii dugsiyada ku saabsan ayaa bilaabatay maxaa yeelay dowladdii xoogga weyneedna ma jirto waalidkii iyo isku xirraantii macallimiintii horena ma jirto waa la kala yaacay qoloba meel bay qabatay marka waxaa bilowday juhdi fardi ah qoloba meeshay joogtay bay wax ka yagleeshay oo bilowday waxaa timi markaa in dugsigii xoogaa la gacan bidixeeyo oo iskuulladii la xoojiyo haddii xagga lacagaha la yidhaahdo lacagaha iskuulku waa fara badan yihiin tan dugsigu waa raqiis xagga ciqaabta haddii loo dhaqaaqo ciqaabaha iskuulka waa loo dulqaadanayaa waalidiintu waa u dulqaadanayaan tan dugsiga uma dulqaadanayaan xagga dabajoogga waalidiintu dugsiga siday u iskuulka siday u daba joogaan dugsiga uma daba joogaan marka waxaa timi baahi gaar ah oo muuqatay oo daahir noqotay oo ummaddii wada camimtay oo ah dugsigii inuu maxay ahayde faryaro bidix ka baxay markaasaa waxaa dhacday in meel kasta shanqartu ka yeedho du'aawarey dugsiyey qur'aaney farbarey xaggeen carruurta la qabanaa waxaa bilaabatay marka hadda waayadan dambe nahdo kale oo nahdada dugsiyada ah ee kacdoon cusub oo iskuulladiina laga dhigo iskuullo isdhextaal ah xaggii maadiga iyo iskuulkii iyo xaggii diiniga waxaa aad iyo aad u xoogaystay in la isku daro dugsigii iyo iskuulkii waalidiintiina waxaad moodaa xoogaa inay ku yara raysteen oo loo darsaday weli se baahidu waa ay jirtaa dugsigiina weli waa la gacan bidixaynayaa ummaddiina talo midaysan kama laha in qur'aanka la hormariyo aniga haddaan ahay odayga waxbarashadana ku soo jiray dugsiyadii hore oo xanqaasta iyo looxa iyo shaafiinta iyo maxay ahaydayay soo maray kudkuduhu soo cunay waxaan runtii khibrad weyn u leeyahay إن قرآنك أكويهي نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على kusoo gabagabaynaya barnaamijkii wacyiga bulshada ee telefishinka Universal barnaamijku wuxuu idinkaga imaanaya magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxaana idin la socodsiinaya anigoo Cabdiwali Xuseen Tawakkal